بسم الله الرحمن الرحيم وحبكي أفراد قابك إنترنت كي نسو جارو حبك كم واحد نكشف كأننا حب عصرية أو أنت بدنا الدنيا كعصب والله يقعنا فايبر أوبتيك to the home أما FTTH بين هذان أو فايبر أوبتيك to the home architecture كيسال كانوا نوجم مقان دونا سيدا وكسبهانو شقيني وحويان شركة إسكارسين تو أوبرتن كتالا كسوقات iyadoo inagu bixinay ISP Internet Service Provider guriyihiina ku halkan ku yaala iyaguna maadaama guriyihii bartan ku yaalaan waxa inoo soo gaari karaa internet ku noocyo kala duwan oo inagii hore u soo sheegnay ilaa 3 xab oo hore marka guriyahan kala duwan waxaynu hore u soo arkaynay in antenno ay signalka inoo keeni karto oo aynu bixinay waa wireless oo antennadaasi aynu nidhi waxaan u baahnaanaynaa in antennana xagga dhinacan ISP ga laga taago antenna labaadna xagga laga taago oo dabeetana communication ku sida ku dhaco habkii labaad weynay ku soo sheegnay in xarig line la soo gelin jiray oo loo odhan jiray DSL intiina xasuusata digital subscriber line ba guriga la inoo soo gelin jiray internet la socdo sidoo kale habkii saddexaad inuu ka hadlay wuxuu ahaa intaan labadaaba iska dhaafno inaynu modem soo qaadano internetka oo aynu ka isticmaalno amaba mobilkeena ka isticmaalno inaynu inta badan ardayda u fiicanta habkan imika aynu ka sheekayn doonaa loo yaqaan isaga fiber optic to the home ka wuxuu kaga duwan yahay kii hore saddex shay uu kaga duwanaanaya fiber optic to the home ku wuxuu horta marka hore ka bilaabmaya waxa signalka qaadaya waxa weeyaan waa fiber optic cable structure ahaan wuxuu ka samaysan yahay isaga waxa loo yaqaan waa class aad u yar oo tinta qofka bili aadanka aleeg dabeetana dheeytadu waxay dhaxmaraysaa koorka oo halka dhexe ay dheeytadu dhaxmaraysaa intiina physics-ka taqaana sidii caadiga ah hadii uu light wave ku meel ku dhaco wuxuu soo sameeyaa reflection kaasi wuxuu noqon doonaa accident ray kanina wuxuu noqon doonaa reflected ray dabeetana sidaas isagoo ku soconaya ayuu from the end gaadhaya marka light ku saas ku dhaxmaraa isagoo saas oo kale u dhinacan kale imanaya waxa ka dhaca wax loo yaqaan total internal reflection oo angle-ka incident raygiisu 90 degree yahay oo qaacidada physics-kana dib ugu laabana mar rabno way dad badan baan laga yaabaa in xasuusan karin hadda ama aanay qaadaninba marka aynu u nimaadno hadaba concept kan loo yaqaano fiber optic to the home sidoo u shaqeeya gurigaaga sidee fiber loo soo gelinaya laba hab horta la sameynaya hadii uu yahay kan centralkii ama xaruntii dhexe ee fiber-ka laga keenayay waxa hortan marka koobaad haboon in laba hab midkood ay shirkadu go'aansato inay ku qaybiso inay transmission line ku qaybiso halkan ay arkayna sida xarkaha leedka oo kala lagu qaybinayo iyo in dhulka la marinayo oo guryaha qaar kood ay internetka sidoo kale ku gaadhayaan oo inta xarig la soo jiiday xarigaasi ilaa guryaha uu imanayo xarigaasi meelaha dhexe waxa la dhigaya meelo loo yaqaan splitters meelo laga qaybiyo xariga sidoo kale uu imanaya like distribution box amba nidhaahdo berigii layma kala isticmaali jiray marka laba line baa laga qaadi karaa ama saddex line baa laga qaadi karaa saddex guri baa loo kala geynaya markaas saddex guri oo kala duwan baa markaas loo kala geynaya qaabkaas oo kale okay kani hadii uu inta badan suuragal ahayn oo waayo meelaha qaar kood baa buuro noqon kara meelaha qaar kood baa noqon kara ma aragtay dhul dooxyo oo kala ah ka ugu fiican waxa weeyaan iyadoo la isticmaalo noocan labaad ee ah transmission line iska sidii line-kii light-ka xarkii light-ka kala loo qaybinaya marka gurigaaga oo kan ah biraha xarkaha light-ka kala bahlaad mudid ba gurigaaga laga taagaya dabeetana labada waa yar dhexdooda ama aan idhaahday labada tower dhexdooda ayaa laga soo talaalaya dabeetana gurigaaga baa lagu keenaya sidaas la mid ah halkan oo kala splitterka la dhigi karaa sidoo kale iyagana laga soo talaalaya marka waa sidii xarkii leedka kala aad muudido mid madow oo hawada maraya fiber optic to the air hab la yiraahdo kalena waa jira imka ka hadli mayno kaasi oo waqtigiisa hadda ma joogno marka qaabkana internetka inagu soo gaaray saddex faa'iido leeyahay marka habkani uu kaga faa'iido badaya kuwa kale oo dhan waa marka koobaad inta badan kharash fara badan kuma baxayo dhulkii lama qodayo oo kan kharash badan baa ku baxa kan dhulka la qodayo lambar 2 wuxuu faa'iido leeyahay hadii ay roobab da'aan inta ugu badan wuxuu saameyn ku yeeshaa haday meeshu jilicsan tahay dooxo kale ay tahay way qodaysaa
laakiin kan inta badan kaasi ma saamay isagana waxaa saameynaya oo dhibaato ku ah hadduu roob dabaylo wata da ka waran isaga laftiisa isna khatartiisu leeyahay mid waliba saameyntiisu leeyahay laakiin fiber optigu wuxuu kaga faa'iido badan yahay labadii horeba waxa weeyaan data rate-ka intuu qaadi karo oo wuxuu ka qaadi karaa data rate intii hore ka fara badan buu qaadi karaa fiber optic to the home markaasaas ayuu u shaqeeyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.